Macallin dhiga xisaab una dhiga arday 6 sano jir ah ayaa waxa uu su'aal weydiiyey wiil lagu magacaabo Arne. Arne, haddii aan ku siiyo 2 cambe iyo 2 cambe, meeqa cambe ayaad haysataa? Arne waxa uu ku jawaabay 5. Macallinkii ayaa yidhi isaga oo farihiisa ku tilmaamaya, Arne, haddii aan ku siiyo 1 iyo 1 2 cambe iyo 1 iyo 1 2 cambe, imise cambe ayaad haysataa? 5 ayuu ku jawaabay Arne. Macallinkii wuu xanaaqay, balse waxa uu soo xasuustay in hooyada Arne ay horay ugu sheegtay in Arne uusan jeclayn cambaha, balse uu jecel yahay strawberry-ga. Sidaa darteed waxa uu bedelay tusaalihii, haddii aan ku siiyo 2 strawberry iyo 2 strawberry, meeqa ayaad haysataa? 4 ayuu ku jawaabay Arne. Isla markii macallinkii wuxuu u bedelay istiraatiijiyadda, waxa uuna ogaaday in Arne uu fahmay xisaabta. Mar kale ayuuna weydiiyey, Arne, haddii aan ku siiyo 2 cambe iyo 2 cambe, imise cambe ayaad haysataa? Arne waxa uu ku jawaabay 5. Macallinkii ayaa xanaaqay, sidee 2 iyo 2 strawberry ay ku yihiin 4, 2 iyo 2 cambena ku yihiin 5? Arne waxa uu ku jawaabay, markii hore 1 cambe ayaa boorsadayda iigu jiray mudane. Yaa saxan? Ma macallinka ayaa qaldan? Maya, maxaa yeelay 2 lagu daray 2 waa 4. Arne miyaa qaldan? Waa maya, sababtoo ah 2 lagu daray 2 waa 4 iyo 1 cambe oo ugu jiray boorsadiisa waxa ayna isku noqonayaan 5. Miyaysan sax ahayn maanta in isfahandarrada iyo isku dhaca dhexdeena yaalla uu ka yimaado farqiga u dhaxeeya sida aan wax u aragno iyo waxa saxda ah ee ka shisheeya aragtideena oo aan isku mid ahayn? Waxaa laga yaabaa in carruurtaada aysan ku dhagaysanin. Waad saxan tahay. Waxaa laga yaabaa in aysan ku dhagaysanin, balse waxaad u baahan tahay in aad ogaato sababta uu carruurkaagu ku dhagaysan la'yahay. Waxaa laga yaabaa in xaaskaaga ama qofka aad jeceshahay aad ka dareento in uusan ku jeclayn. Haa, waa laga yaabaa, balse beddelkeeda waxaa u baahan tahay inaad ogaato sababta saxda ah ee qofkan uu kuu jeclaan la'yahay. Ma ahan qofka in aad ku xukunto wax aadan adigu ogeyn.